kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkan Hiil Walaal oo aanu idinkugu soo gudbinno wararka iyo waxqabadka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Waxaanu idin haynaa qodobo dhowr ah hase yeeshee marka hore aanu idin soo gudbinno qodobada ugu doorka roon. booliska AMISOM oo bilaabay diiwaangelinta in ka badan 5,000 oo ka mid ah ciidamada daraawiishta ee maamulka Jubbaland. Soomaaliya oo diyaarinaysa qorshe howleed qaran oo loo dhan yahay si looga hortago xagjirnimada. iyo xildhibaano ka tirsan xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle oo booqday baarlamaanka Kenya kaasi oo ay suurto gelisay qaybta madaniga iyo xasilinta ee AMISOM. intaas in ka badanba waxaad ka bogan doontaan markaynu dib isugu soo noqonno. wararka barnaamijkeena waxaanu ku bilaabaynaa war aanu idinkaga soo diyaarinay maamul goboleedka Jubbaland halkaasi oo ciidamada booliska AMISOM ay ka bilaabeen diiwaangelinta casriga ah ee dhammaan ciidamada daraawiishta ee ku sugan gobolkaasi. ciidamada daraawiishta waa ciidamo ka kooban maleeshiyaad kala duwan kuwaasi oo horey gobolka uga soo qayb galay howlgallo kala duwan. diiwaangelintooda rasmiga ah oo ay sameeyeen booliska AMISOM ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu ogaado tiradooda rasmiga ah waxaana arrintaasi ay tahay mid aad muhiim ugu ah gobolkaasi. waxaan bilownay diiwaangelin ku saabsan ciidanka daraawiishta kaas oo ujeedooyinkiisu ay tahay in la tiro koobo oo si casriyaysan loo diiwaangeliyo dhammaan ciidanka daraawiishta ee booliiska ah ee Jubbaland ay haysato iyadoo ay naga caawinayso saaxiibada AMISOM oo naga taageera dhinaca horumarinta haday noqoto arrimaha ciidanka. diiwaangelinta waxa ay sidoo kale ka caawin doontaa ciidamada booliska AMISOM inay qorsheyso baahiyaha dhinaca tababarka ciidamada iyo la talinta ka hor inta aan lagu darin laamaha amniga ee gobolka. ciidamada loo diiwaan geliyay ayaa waxa u bannaan inay doortaan in ay ku biiraan ciidanka booliska federaalka ah amaba kuwa maamul goboleedkaasi. tallaabadan ayaa sidoo kale looga gol leeyahay in lagu taageero qorshaha xilwareejinta AMISOM ee ku salaysan shuruudo dhowr ah iyaga oo ku ogaanaya tirada qaybaha kala duwan ee ciidamada booliska gudaha oo ay ka tegi doonaan marka la gaaro waqtigii ay mas'uuliyadda amniga ku wareejin lahaayeen ciidamada ammaanka ee dalka. qaybta koowaad oo ka kooban ugu yaraan 1,500 oo saraakiil ah ayaa lagu diiwaan geliyey Kismaayo taariikhdu markii ay ahayd 27 bisha aynu soo dhaafnay ee Maarso 2018 kadib markii uu codsaday taliyaha ciidanka Jubbaland Sareeye Guuto Aadan Maxamuud Ibraahim. aad baan ugu faraxsanahay maanta hawsha halkaan ka socota database-ka ama registration-ka ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan ciidanka daraawiishta iyo taliska ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta ka bilaabatay taliska ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland ee shirkooda ka bilaabatay. aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad u danaynaynay oo aan aad u soo dhaweynayno weeye. waxa uu AMISOM ka codsaday inay fududeyso sidii ay ku tagi lahayd meelaha ka baxsan goobaha ay ka howlgalaan haddii ciidamadu ay joogaan meelo ka fogfog. isuduwaha ciidamada booliska AMISOM ee qaybta maamulka Jubbaland isla markaana ah ku-xigeenka taliyaha booliska Martin Abilo ayaa waxa uu sharaxaad badan ka bixiyay hawsha socota iyo tirada loogu talagalay. This is in line with the AMISOM and the UN program of developing the force into a police force in Jubbaland that will be mandated to keep law and order and security in Jubbaland state. We are targeting 5,000. There are 5,000 of them to be registered. We are starting with Kismayo. All those in Kismayo, we expect to register about 1,500 from Kismayo alone. Then we shall move to other states like Gedo region. We shall go to places like Dolo, like Elwak, like Kuda, and Beletsau. AMISOM waxaa mas'uuliyadda ay ka saaran tahay inay tababar iyo la talinba siiso booliska federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay ka dhigto ciidamo wax ku ool ah oo hufan isla markaana u hoggaansami kara heerarka caalamka ee booliska.
dhinaca kale waxaa la wadaa qorshe ay Soomaaliya ku yeelanayso qorshe howleed qaran kaasi oo loo dhan yahay islamarkaana looga gol leeyahay in looga hortago xagjirnimada. Qorshe cusub ayaa waxaa lagu tixgelin doonaa aragtiyada iyo baahiyaha dhammaan daneeyayaasha oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada si ay u suurto gasho dhaqangelinta istaraatiijiyad dhammaystiran oo hab qorshaysan loogaga hortegayo xagjirnimada. Go-aankan ayaa waxaa dhammaadkii bisha lasoo dhaafay gaaray dhammaan dadkii ka qayb galay kulan socday 2 maalmood oo lagu qabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay dib u eegis ku sameeyeen qorshaha haatan socda. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ka hadlay furitaanka seminaarka ayaa ku celceliyey sida loogu baahan yahay in qorshe waliba oo ku aadan hadafka ka hortagga xagjirnimada ay hormuud ka noqdaan Soomaalidu. Waxa uu soo qaatay doorka muhiimka ah oo ay culimmadu ka geystaan isbeddelka aragtiyada iyo hadalka sida ku xusan habka dhammaystiran ee loo wajahayo amniga. run ahaantii maanta waxaynu u fadhinaa isugu nimid inaynu daah furno shirkan wada tashiga iyo aragti wanaagga ee lagaga hadlayo fikirka xagjirka ah halku dhigiisuna yahay dulqaad iyo wada hadal in la isu dulqaato oo diinta islaamku in badan culimaduna ay nala joogtaa in lagu wacdiday iyo in la wada hadlo oo la doodo oo fikir wixii la isku wadaarsan karo la isku qancin karo. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka ayaa sidoo kale ku taliyey inaan la adeegsan awood military balse in tallaabo laga qabto dadka ku lugta leh arrimaha xunxun sida xagjirnimada. arrinta dagaalka iyo in dagaal iyo xoog lagaga hortagaa waa ta ugu dambaysa laakiin waxa ka horeeya wacyigelin iyo ideology in fikirkan xiwaar laga furo oo lala doodo iyo taafraad oo noqon karta in dhaqaalaha iyo meelahan waxaan ciidan ku shaqaysataa ay ka keenayso ama ay ka helayaan la joojiyo sida kaliya lagu hormari karo oo wax looga qaban karaana waxa weeye in culimada la dhageysto istaraatiijigaasina uu leeyahay qorshe Soomaaliyeed leedahay. Duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa qabanqaabiyaasha kulanka ku bogaadiyey shaqada wanaagsan oo ay qabteen isagoo isla markaasina ku baaqay in si buuxda loo hirgeliyo qorshe howleedka. Ku-xigeenka madaxa ururka haweenka Soomaaliyeed Abshire Axmed Macalin ayaa sheegtay inay ka xun tahay sida ay xagjirnimadu u burburiso nolosha dad badan oo Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka mar walba uu qarax dhaco. Waxaa hadalkeeda ku raacay agaasimaha isgaarsiinta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha Cadar Cali Maxamed oo sheegtay in haweenku ay kaalin laxaad leh ka ciyaari karaan dagaalka ka dhanka ah xagjirnimada. fikirkan maxay ahayd waa fikir haraadiyay dalka Soomaaliya waan soo dhaweynayaa in laga shaqeeyo fikirka xagjirka ah sababtoo ah dhibaato badan ayuu u geystay hooyooyinka Soomaaliyeed because kan wax dilaayana ayaga dhalay kan la dilaayana ayaga dhalay marka waxaan leeyahay wax badan ayay ka qaban karaan maadaama hooyooyinka Soomaaliyeed ay yihiin guri joogto waxay ogaan karaan ninka xaafadda soo degay waxay ogaan karaan dhaqdhaqaaqa ilmahooda iyo fikirka xun oo lagu shubay kan wax dilaayana ayaga dhalay kan la dilaayana ayaga dhalay marka waxaan leeyahay hooyooyinka doorka ugu weyn ay leeyihiin sidoo kale culimo u diinka sidoo kale dhalinyarada sidoo kale maxay ahayd in dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya isuduwaha qaran ee ka hortagga iyo la dagaalanka xagjirnimada Dr. Yaxya Cali Ibraahim ayaa muujiyey sida ay dawladda uga go'an tahay inay abaabusho olole qaran oo ku aadan wada noolaanshiyaha iyo wada xaajoodka dhammaan Soomaalida mar allaale iyo markii la dhammaystiro qorshe howleedka qaran ee dib u eegista lagu sameeyey. Ujeedka shirku wuxuu ahay in dadka Soomaaliyeed wax iska weydiiyaan istaraatiijiyada qaran ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay sameeyeen iyo qorshe howleedyadii la wada sameeyey sidii loo taabageli lahaa in wax la iska weydiiyo howlgal adag baa dawladdu ay qaadaysaa waxaana loo baahnaan doonaa wacyigelin la socoto oo ummadda Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin barnaamijkana gundhigiisu waxa weeyaan dulqaad iyo wada hadal dadka Soomaaliyeed inay sida u fahmaan qof walba kaalinta ka muwaadinaan uga aadan inuu baajiyo dhiigga walaalkiis iyo walaashiis oo sida xaq darrada ah u qabanayo maalin walba dadkana waa dad annaga naga mid ah waa dad Soomaaliyeed ah sida ugu wanaagsan looga hortagi karo cilmi baaris kala duwan laga sameeyay walina aan wadnaa dalkoo dhan ka dhici doonto laakiin si wada jira in loo dhaqaaqo ayaan go'aansanay ilaahay doorana waxa bilaaban doona maalmaha soo socdo culimada Soomaaliyeed shir weyn qaran ay leeyihiin. Marwe Maane Axmed oo ah sarkaalada jinsiga ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya
amisom ayaa ka hadashay sida uu shirka howlgalka midowda afrika fursad u siiyey inay taageeraan xafiiska kahortagga argagixisada iyo daneeyayaasha kale si loo hubiyo in qorshe howleedka qaran uu meel mariya hab loo wada dhan yahay iyadoo aysan jirin tilmaamayaal cad oo lagula soconayo barnaamijyada maxalliga ah iyo kuwa federaaliga ah iyo in haweenka laga qaybgeliyo barnaamijkan. kulankan ayaa waxaa ka qayb galay dad matalayay dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada culimaa udiinka aqoon-yahano haween iyo ururada dhallinyarada soomaaliyeed. haddii aanu hore uga sii gudubno qodobkaasi, ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa diyaar u ah inay noqdaan ciidamo si wanaagsan u ilaaliya caruurta ku jira dagaalada hubka la isu adeegsanayo kadib markii ay qaateen tababar socday muddo 3 maalmood ah oo ay soo qabanqaabiyeen ciidamada amisom iyo safaaradda ingiriiska ee soomaaliya. dadkii ka qayb galay tababarkan ayaa waxaa lagu wacyigeliyey dhibaatada ay leedahay in caruurta laga qaybgeliyo dagaalada hubka la isu adeegsado iyo wixii la mid ah iyo sidii looga hortegi lahaa askaraintooda iyo in loo adeegsado dagaallo hubaysan. saraakiisha tababarkan qaadatay ayaa sidoo kale loo xil saaray inay wacyigeliyaan saraakiisha kale ee ay soo wada shaqeeyeen si loo joojiyo dhibaatadan. maxamed cali galabey oo ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay tababarkan ayaa ka hadlay sida tababarku uu muhiim u ahaa, waxaana uu ballan qaaday inuu sii gudbiyo fariinta ka dhanka ah in caruurta loo adeegsado dagaalada hubaysan. waxaa ka mid ahaa inaan caruurta la askaraynin, inaan la dilin ama aan la dhaawacin, inaan laga hor istaagin dadweynaha gargaarka bini'aadinimo, in caruurta aan lagu shaqaysan oo loo isticmaalin iyagoona gaarin da'dii wax aysan qaadi karin aan kor laga saarin. teeda kale askaraynta caruurta cunuga dhibaatooyinka marka uu askariga noqdo oo ku yeelan karo saameynta bulshada ama isaga ay saameyn ku noqon karto intaba waa baranay insha Allah biidhnillaahi kariim. waxaan jeclahay inaan wax ka bedelno. ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha guddiga midowda afrika mudane simon mulongo oo si rasmi ah u furay tababarkan ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in jawi nabad ah oo ammaana loo abuuro caruurta, isagoo carabka ku adkeeyey inay yihiin hogaamiyaashii jiilka soo socda. Therefore, the question of protecting children and ensuring that they grow in a safe, secure, and productive environment becomes our noble responsibility, both as parents and as leaders of our society and of our communities. No country can have hope. No country can have a future unless the children are properly nourished and brought up. ugu dambeynna waxaa haddaya wixii ka dambeeya kor loo qaadi doonaa tayada doodaha ku aadan sharci dejinta baarlamaanka hirshabeelle kadib markii 42 xubnood oo ka tirsan xildhibaanada maamulkaasi ay qaateen tababar socday muddo 6 maalmood ah kaasi oo ku aadanaa sidii looga doodi lahaa arrimahaasi, kuwaasi oo looga gol leeyahay inay u faa'iideeyaan bulshada ay matalaan. tababarkan oo ay soo qabanqaabisay amisom ayaa bishii aanu ka soo gudubnay waxa uu ka dhacay caasimadda dalka kenya ee nairobi, waxaana ka qayb galay xubnaha baarlamaanka ee ka tirsan guddiyada la socodka baarlamaanka maamul goboleedkaasi. iyadoo ay qayb ka ahayd tababarka ayaa xildhibaanadu waxa ay yeesheen kalfadhiyo aan rasmi ahayn iyadoo lagu salaynayay casharadii ay kororsadeen kadib markii ay booqasho ku tageen labada baarlamaan ee ismaamul goboleedyada kenya, iyadoo guddoomiyaha baarlamaanka sheekh cusmaan bare maxamed uu isla matalayay booskiisa caadiga ah. waxay ka doodeen dowrka ay haweenku ku leeyihiin maamulka iyo tirada hubka ee ku sii badanaysa gudaha maamulka hirshabeelle. horraantii isbuucaasi ayaa xildhibaanadu waxa ay booqdeen baarlamaanada ismaamul goboleedyada kale ah nairobi iyo machakos si ay ugu kuurgalaan habdhaqanka baarlamaaniga ah oo ay adeegsadaan. waxaa sidoo kale ay goobjoog ka noqdeen kulan ay lahaayeen guddiga xisaabaadka hantida dadweynaha ee baarlamaanka heer qaran ee kenya, kaasi oo eegaya qaabka loo isticmaalay dhaqaalaha. mudane aadan ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya
oo si rasmi ah u xirayay xafladda ayaa xildhibaanada ku booriyey inay fursado siiyaan haweenka si ay kaalin uga qaataan dhismaha qaranka. waxa uu sidoo kale sharci dejiyayaasha ugu baaqay inay adeegsadaan casharada ay tababarkan ku barteen si ay ula yimaadaan fikrado xoojin kara awoodda iyo dimuqraadiyadda maamul goboleedka Hirshabelle kaasi oo ay ka soo jeedaan iyo guud ahaanba Soomaaliya. There's need for enhancing the capacity of the regional states in the federal government of Somalia, and this is crucial in consolidating the gains made by Somalia after more than 2 decades of conflict. ku-xigeenka madaxa howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya mudane Simon Mulongo oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sharci dejiyayaasha ku booriyey inay qabtaan hoggaanka kalfadhiyada baarlamaanka iyagoo adeegsanaya wixii ay ka barteen tababarka si ay u noqdaan kuwo awood u leh isla markaana ay u noqdaan xubno baarlamaan oo howlkar ah. isagoo ku hadlayay magaca sharci dejiyayaasha martida ah ayaa mudane Yuusuf Axmed Yalaxow waxa uu tababarka ku tilmaamay inuu yahay mid isha u furay waxaana uu ballan qaaday inay adeegsan doonaan wixii ay ka barteen. afhayeenka baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Axmed ayaa kulamadii tababarka ee dhisidda kartida ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu wanaagsanaa ee ay ilaa iyo iminka qaateen. tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey Dr. Opiyo Ododa iyo Fadil Karar oo labaduba ka soo jeeda qaybta rayidka ee xasilinta AMISOM. intaasina waxa ku eg barnaamijkeennii adinkoo ku mahadsan sida aad ula socoteen. tani intaynu dib ugu kulmi doonno barnaamijkeennan mid la mid ah waxaannu idinku dhaafaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.